kan wayba howlgal ku dhangay nabadiidka al-shabaab ee kuwadan ciidamo ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wayba muddooyinkii la dhaafi iyo wadana ciidamada sidii nabadiidka al-shabaab ku safeen deegaanada ku dhumaalaysadaan koonfur galbeed waliba deegaanadii howlgalkii ku sameeyay kumideen deegaano hoos kooyow degmada Bardaale ee gobolka Baay waliba howlgalka isla marxaantaasi uu sahay kala ka bacsaday nabadiidka haraadiga al-shabaab deegaanadii geeka howlgalka sameeyay waliba kumida ciidamadu deegaanka Mooro Waraaba Baygaduud Mooro Qasaale Sarmaandheer Boorama Baaqi Horgoylow Yafa iyo deegaano fara badan oo hoos kooy degmada Bardaale ee gobolka Baay walibana meelaasay warbaahinta koonfur galbeedka la hadlay qaar kumid saraakiil ciidamadu hogaamiyaasi oo ku warbi deegaanadu iyo howlgalkii ka suubeen oo isla marxaantaasi ka bacsan haraadiga al-shabaab iyo sheegeen intii sii wada doonaan howlgalada la ka bacsado nabadiidka al-shabaab muslimiinta oo dhan may baan ka baagana meel walba rogan inay udowgan isku fudiyaan tan kale may ba hadafkaana may bahay inay udowga ilaahay ama ma fi diimadka al-shabaab una beegsan meel ka sii rogan siisin kor qabtan howlgala wiinga ka jarnaata deegaamo oo Bardaale hoos ka wayan sida Baygaduud ilaa Mooro Waraaba deegaamo oo degmada Bardaale hoos ka wayan hadafkaana gurugada korgaado lanki bamka gemi lanki shiiki gemi saadan nimankan yabsinin ilaahay subhanahu wa ta'ala yibi diintiyo sheegada ma inagatay maana diin jabsho diinta islaamka ma ibo ku iniraafan saadan ma ilana muslimiinta siyoota dadan gaalaysan in lan gaalaysi lan kastamil kastro ini onay ku kaho lan kast bugurji hagado limintu udowka oo masaakinta dhamaayahayano muslimiinta mil kastamarayano ilaahay kin roona go'doomiyayaan ini onay oo gargaarna kulay insha Allah may bas in ku bagane walaaliyalo lanki ka sadar lanki weejid rog lanki oo diin soo rog lanki buurha ka rog ini onay limintu udowka isku reebna ini limintu udowka masaakinta dhamaayahano hoola joqaadahayano waayidinta gumaadahayano wal kasta sameeyaan ini onay yaadasay in gargaarna may babalan ku qaanay ilaahay balin sheeyna intii uu naftun uu qamna oo limintu oo ilaahay kin roonada geedo iyo hirgalaan inay onay hirgal deegaanada hoos kooy degmada Bardaale ka howlgalaan ayaan tumba howlgalka Saudi toddobaadii howlgalka Saudi qasadheer may bank baagan dhalinyarada roogda qasadheer in baagan may bank baagan inay howlgalaan un ognu ku warqamno kurtin ila boolaha wala ka soo ku warqam kiilo sokor intii lanka gadada lanka kiilo sokor gad boono lahan gooyahay oo likun diiba boono kiilo sokor gadada an moodana qasadheer in moodan walkala wal oo kiilo sokor ku badan in moodan ku warqam ku warhay in kurtin wala la kuwelaha ila boolaha insha Allah ta'ala daqiiqado haniifoodna may baragaana dadka meel ka suun dawaab degdeg ah raayaan may balana dhalinyarada meel roogdana ay la sun dulmeenay qasadheer ilmi roogd wali balana ay ku gadnay shacabkan kiilo sokor boono lagu qaadnay wadankan shaqay inuu dulmudiid may baan in sheegane caalamka dadka roogiyo dadweynaha dham may balana al-shabaab halan kooy harus ku reeboy dadku dulmeedu diimuudan diinta beenga ku sheegan ku been sheegan lan masaajidka jiro dilahayan lan kaniisadka jiro baalgaadahan waliyo diinga haysadan oo ilaahay abuuri marle may balana saadumar ku bilowdon dhamaan meel kasto koonfur galbeed iyo roogda ku howlgalaan nimagu si degdeg ah shaqanahan qabooday unu may diyaaranayna saadumar ku bilowdo eerida qasadheer ila eerida qasooman zoon walaay hoos kooy inuu walaay al-shabaab uu kala degaan ciidamada ee waliba fadhiismay kaliya magaalooyinka Baydhabo Bardaale deegaanka Awdiin ee goofgodad Buray waliba isla marxaantaasi hogaanka sidii nabadiidka al-shabaab oo doorka ka dhoomaaleysay doorkan la galal lahaayeen iyo isla marxaantaasi ciidamadu hameen imaarin suryin sidii guud ahaan nabadiidka al-shabaab dhibaato baan ka haysh abka Soomaaliyeed yaan ku dulqaadan lahaayeen Faisal Daay Hussein warbaahinta koonfur galbeed Baydhabo.